muddan halkaas ku jiray jirdila laygu sameeyey waa la soo garaacay farahayga qaaraa jaban qaarkii waxa laga yaabaa markaan saas iraado aragtaan fartaan iyo farahan iyo feeraha iyo waxaasna waa jaban yihiin gudaha xabsiga dilka dhexdiisa laygu geystay oo ahayd inaan laygu qasbo in aan u shaqeeyo ayaga ana wadi 17 qof aan ku galnay meeshaas maanta laba ka nool aniga iyo nin Yemaniya ka nool soo macnaha taas aad ka fahmaysaa wuxuu yahay ma ay shakhsi lagu cabsiinayo dhimasho because dhimasho waa soo arkay midabadeeda waana dhiman laakiin midabkeedan soo arkay ma ay qof lagu cabsiinayo markii dambana waxaan heshiis ku gaarnay ilaahay yaa ii sahla taas hay'ad la yiraahdo care oo Mareykanka ka jirto oo dooda xuquuqda islaamka ayaa ii dooday باذن الله hay'adii markii banaanka waxa lagu heshiiyay in ninkan Soomaaliya lagu celiyo 10 sano aan waxba qorin waxna akhrin siyaasadna aan ka hadlin 10 sano inaan waxna qorin waxna akhrin siyaasadna aan ka hadlin 10 ka sano waxay ugu dhamaaleed 2022 waxay kale go'aansadeen marka Soomaaliya la keenay maadaama ay ka fududahay in Mareykan lagu dilo in Soomaaliya lagu dilo in Soomaaliya lagu dilo ay u fududahay ayaga in Soomaaliya lagu dilo maalinta la keenay Soomaaliya Muqdisho anigoo qoorta silsilada igu jiraan gacmaha dhan kulligay wada bir ah waxa taagnaa ragaala oo Mareykan oo cadaan ah taagnaa meesha waxa la taagnaa niman askar oo Soomaaliya iyo gaafo nin la yiraahdo oo immigration ka haystay arintaasi waxa sidoo kale familkayga ayaa wuxuu sheegay inaan soo socdo la rabana in la dilo because qadada waa ogeyn lawyer-kayga ay sheegay waxa meesha soo galay airport-ka dhexdiisa Allah u naxariistay Nabadon Axmed Diiriye oo ahaa adeerkay iyo ehelkayga walaalkay ehelkayga kaleeto waa la isku qabsaday ninka anaga wadana iyo anaga wadanayna in la jijiiday noqotay ugu dambeyntii familkaygii waxay awood u yeesheen inay idamiintaan oo ay wadaan ayaan bari ku noqday alxamdulillah ilaa maantana aan ku joogan ku noolahay micnaha taas marka kale aan ku sii daray wuxuu yahay haddii Allah subxaanahu wa ta'ala uu qoray inaan dhinto waa dhima laha haddana marka Allah ii qoran dhimanaya laakiin muhiimka wuxuu yahay si kastoo la cabsiyo si kastoo hay'ad lacag bixiyaan si kastoo gaal iskugu tagto hadafka aniga aan leeyahay oo in Soomaaliya ay noqoto dawlad islaam ah aanan qori qaadan hal qori aanan qaadan hal qof aanan dhaawacin oo ku guuleysan hadii ay raado haddaan noolahay haddaan dhintana dad kale to islaam oo farabadan jiro soo baxay taas walka ma qabo waxaan marka rabaa inaan idin sheego aniga contractiga aan Mareykanka la gol ahayd inaan 10 sano inaan hadlin waajibi waxaan u jabiyay because of wadankayga dhibaatada haysata waa dooro karay naftayda iyo ilmahayga iyo reerahayga quruxda badan iyo gabdhaha quruxda badan qabo waa dooro karay laakiin waxaan ka doortay marka arka dhibaatada wadankayga uu ku sugan yahay xaaladda uu ku sugan yahay iyo gumaysiga nasaaray si loo qolo wixiina aan aqaano mas'uuliyadda isaarna waxay tahay in aanu istaago shacabka Soomaaliyeed iyo wadankayga iyo diinteeda oo jeclahay oo aan diidoon xabsi ugu jiray almost 4 sano Mareykanka incommunicado oo laygu dilay oo laygu jirdilay maantay anoo banaanka jooga inaan ka aamuso waa minka xalawtiga mana sameeynayo waxaan leeyahay marka nimanka BBC do contractiga soo wariyaalka oo ninkan hal cambaaro leeyahay wariyaal waa because wariyaalka waxa kale loo leeyahay macnaha in layga maro dhinacii warbaahintii oo hadii warbaahintii loo sheego leeyahay ninkan dad uu soo dilay wariyaal waliba soo dilay dad kale soo dilay hadii la waxa laga yaabaa in la yiraahdo waaw Soomaaliya 1999 waa la soo dilayay dhib ma laha waa dadka dhan Soomaali dhan dagaalamaysa in la yiraahdo laakiin hadii la wariyo dilay macnaha nimankii dadkii kale wari waxaan rabaa marka inaan shacabka Soomaaliya la wadaago waxaan ka codsanaa dhamaantiin inta ku jirtaay qof walba si shir gareeyo si message kan u gaaro dhamaan bulshada Soomaaliya because arrintaani waa arrin diini ah waa arrin loo baahan yahay in loo istaago haddii maanta anigu aan dhibaato soo gaarto ama because of arrintan la igu dilo ama dhibaato kale igu timaado de waxay noqonaysaa hadii la yiraahdo qof walba maalintiisa meeshiisa in loogu yimaado lagu helo haddaan laakiin isgarabsano haddaan isgarab istaagno haddii arrintan laga hadlo oo dadka islaamka ay ka hadlaan haddii waxay noqonaysaa markaas inaan xoog leenahay wadankana difaacno waxaan u reetal ku noqdaan u dagaalamaynaana waa difaac diinteena iyo wadankeena waxaan rabaa marka inaan ku soo gunaanado anigu waxaan ahay islamist qof u taagan ama aaminsan in diinta islaamka wax lagu dhaqo philosophy-gayga عقيدتيدا دجالكيga kaas waay si kasto lay cabsiyana dib uga digmaayo anoo xabsi Mareykan lagu isticmaal lagu dilaayo hamin kasta anoo hamin kasta lay garaacayo anigoo quraanyo lagu fadhiyay anoo duud cidiyaha laga galiyo mas'uul aan jiifanayay macnaha dhowr iyo 10 maalmood mas'uul aan jiifanayo bahalka intuu galay ilaa iyo lugaha jilbaha uu yimid waligay dib uga ma degin hadda maanta cabsi dib uga digayo marka nimanka
programka wado dhahay ninka hal cabsiyo wada waa inaan dhinto un baan uga har arrintaas wax kale oo iga reebi karaay ma jiraan iyo Allah subhanahu wa ta'ala qadartiisa kale ugu dhacdo waxaan markaa shacabka Soomaaliyeed la wadaago waa idin jeclahay barnaamijka tala ku nool haddii maanta anigu aan tago line-ka tala ku nool qofaa ku soo jira oo diyaar inuu position ka soo galo marka hataa waxa fiican inay iyagu laftirkooda ma fakerino isma dhihin war ninkaan ma kaligiisa amse dad la socdo waxaan rabaa marka inaan kaga tago arrintaas iyada ahi dhambaalka aniga aan wado ee Soomaaliyeed ee ah in la difaacdo you know diinteena iyo dalkeena iyo dadkeena waxa weeye waa arrin muqaddasa waana arrin aan marka kaarin idinkana saas aan ka rabaa Sufyaan Sheekh Axmed weeye waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabad baan isku ognahay arrintaasna ha laga hadlo ha la difaaco dadka dacaayada suuqa wado Sufyaan saan weeye oo Mareykanka laga soo tarxiilo oo war Mareykan waxa u naqaan male annaga la faheena wala soo cararnay in la ku dilo 17 qof aan xabsi ugu galnay anagoo laba ka noqday yaryarmeen aniga marka wax weyn aduu kuleeyahay ani wax weyn meelaha waxa wax weyn la diinta islaamka iyo dalkayga marka sidaas ay inoo ahaanaysaa saasan isku ognahay annagu ma gambanayno qadartu maalinta inoo timaadana hadda wassalaamu calaykum waxa weeyaan tii fiicnadaan u soconaa ilaahna waxaan ka rajaynaynaa ilaahna aan ka baryaaya arrintaana inay noqoto cibaado ilaahay inuu asiib siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh